weeraryahanka kooxda kubadda cagta Real Madrid Gareth Bale ayaa lagu soo waramayaa inuu garoomada ka maqnaan doono muddo ilaa 15 maalmood kadib markii 2 gool ay la galeen kooxda kubadda cagta Villarreal kulan aad u xiiso badan ciyaartaasi oo laacibka dhaawac uu soo gaaray. wargeyska Mundo Deportivo ee ka soo baxay gudaha dalka Spain ee Catalonia ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in Gareth Bale uu ka maqnaan doono safka kooxdiisa Real Madrid 10 ilaa iyo muddo 15 maalmood. Gareth Bale ayaa lagu soo waramayaa inuu seegi doono kulanka horyaalka liigaha ay kula ciyaari doonaan kooxda Real Sociedad maalinimada Axadda ah ee soo aadan. sidoo kaleeto waxa uu ka maqnaan doonaa kulanka Real Betis ay ku wada ciyaari doonaan 13 bisha Janaayo ee ku guda jirno. waxaa intaasi sii dheer 2 kulan oo Copa del Rey oo ay kula ciyaari doonaan kooxda Leganes 16 isla bishan Janaayo ee ku guda jirno. naadiga Real Madrid ayaa sugaysa suurtagalnimada ah in laacibkooda reer Wales Gareth Bale uu ka soo muuqan karo kulanka horyaalka liigaha 19 bisha January oo aan ku jirno kula ciyaari doonaan kooxda Sevilla. kulankaasi oo ah midka ugu adag oo la filayo in laacibka uu soo laaban karo muddo 15 maalin ayuuna garoomada ka maqnaan doonaa. si walba noqotaba xaaladda ciyaaryahanka ayaa lagu qiimeeyay maalmahaasi dhaawaca soo gaaray, waxaana dhabarjab ay ku noqonaysaa kulamada soo aadan kooxda Real Madrid. mid ka mid ah ciyaartooydooda ugu wanaagsan ee dhanka weerarka ka ciyaara xidiga u dhashay wadanka Wales ee Gareth Bale